bismillaahi raxmaani raxiim. Halkani waa CID Pro TV Journal oo ah janalka dhinaca wararka wareysiyada iyo waxaan usoo joogay oo aad si joogta uga dheehataan wararka iyo barnaamijyada iyo dhacdooyinka kala duwan ee ka dhaca inta badan dunida. July waa 14 waa maalin Talaado 2026 magaalada London. Wararka ka imanaya dhinaca gacanka waxay sheegayaan in weli ay jiraan colaadihii iyo weeraradii dhinaca Iran iyo weliba Mareykanka, iyadoo Mareykanku uu weeraray goobo kala duwan oo ku yaala dalka Iran iyo jasiirado kala duwan ayaa Iran lafteeduna waxa ay weerartay danaha Ameerikaanka ee gacanka oo ay dhowr wadan markaasi ay asiibtay xagga gantaalada iyo weliba daroonada. Ameerikaanku waxay sheegeen sababtay u weerarayaan inay tahay dhinaca Iran, iyadoo Iran ay ka dhaga adeegtay arrimo badan oo ku saabsan gacanka Hormuz. laakiinse Iran dhinaceeda waxa ay sheegtay cidda wax burburinaysa cidda aan nidaamkii safgaradkii aan markaasi fulinaynin oo aan adeecaynin oo dhegaysanaynin inay tahay dhinaca wadanka Mareykanka. Wadamada Bahrain iyo Oman iyo weliba dhinaca Kuwait ayaa weerarka uu ka dhacay oo danaha Ameerikaanka la beegsaday sida ay sheegayaan maamulayaasha magaalada Tehran. dhinaca kale wararka imanaya istaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya inay istaga Imaaraadka Carabta eedeynayaan dowladda Iran kadib markii laba markab oo dhinaca shidaalka oo maraya gacanka Hormuz oo ay iska leedahay dowladda istaga Imaaraadka Carabta la weeraray, taasina ay keentay culays xoog leh inuu ku yimid. arrimahaasi oo dhan marka la fiiriyo umar hoona dhigta dadka guud ahaanba dunida iyo dhaqaalaha adduunka iyo tamarta. Ameerikaanku waxay sheegeen iyagu inay doonayaan inay maamulaan gacanka Hormuz oo weliba ay jirayso lacag ay kusoo rogayaan 20%. laakiinse dowladda Iran waxa ay sheegtay cidda maamulaysa gacanka Hormuz weligeedna maamuli jirta inay noqonayso iyada, isla markaasina ciddii aan dhagaysan amarka ka imanaya Tehran ay ciqaab mudan doonto. wararku waxay sheegayaan sababta keentay maraakiibta istaga Imaaraadka Carabta in la weeraraa inay tahay inay dhagaha ka fureysteen amarka ka imanaya magaalada Tehran iyo dowladda Iran, taasina ay keentay in gantaal lagu dhufto hal qof oo kamid ah shaqaalihii markab kamidii uu dhaawacmo iyadoo 8 kalena markaas uu dhinto iyadoo 8 kalena markaasi ay dhaawacmeen. Imaaraadku waxay sheegeen shakhsiga maraakiibta saaraa ee dhintay inuu u dhashay asal ahaan wadanka Hindiya, 8 kalena 6 kamidii ay yihiin Hindi. lama oga waxyaabaha ka dhalan kara arrinkan oo ah habeenkii afraad marka la fiiriyo Ameerikaanka iyo weliba Iran, oo dhinaca kalena Mareykanku uu sheegayo inay suurtagal tahay wadahadalkii inay dib u socdo si nabadda markaa loogu laabto, laakiin taa aan la ogeyn. su-aal ayaa jirta la isweydiinayo oo ah dowladda Pakistan oo ah dowladda ugu ballaaran iyo ra-iisul wasaarahooda Shahbaz Sharif suurtagal ma tahay inay mar kale soo celiyaan isafgarad iyo nabad iyo wadahadal ayagoo weli ku mashquulsan ama ku howlan. arrintaa lafteeda lama oga siday uga heli karayaan maamulayaasha magaalada Washington iyo weliba magaalada Tehran ee xarunta dalka Iran, laakiin waa laga warsugi doonaa. wararka ka imanaya magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan waxay shaaca ka qaadeen maxkamad ka dhacday magaalada dekeda ee lagu magacaabo Port Sudan ee dalka Suudaan oo ay maamulayaasha militariga dalka Suudaan ay maamulaan in maxkamadaas ay xukuntay hogaamiyaha kooxda mucaaradka RSF ee ah jananka lagu magacaabo Maxamed Xamdaan Dagaalo iyo 16 sarkaal oo kale oo ka tirsan. maxkamaddu waxay sheegtay dhammaantood in lagu xukumay dil toogasho ah iyadoo loo tirinayo inay dhibaateeyeen dad badan oo ay laayeen, xasuuq inay geysteen, dambiyo dagaal inay geysteen, kufsi inay geysteen iyo amaradooda in dad badan markaasi lagu laayay. arrintaas iyada waxay u aragtaa dowladda militariga ee dalka Suudaan inay tahay mid wax ka taraysa marka la fiiriyo dhibka xoogga leh ee ka jiray dalka Suudaan tan iyo 15 Abriil 2023. magaalada Port Sudan maxkamadda ku taala ee raggan iyaga markaasi maxkamadaysa waxa kale oo ay soo jeedinaysaa in Interpol oo ah hay'adda caalamiga ee booliiska adduunku ay soo saaraan qoraal markaasi digniina oo ay ku muujinayaan qaabkii sida gacanta loogu dhigi karo janankan Maxamed Xamdaan Dagaalo iyo ragga kale ee dhibka wada. dadka kale ee la xukumay waxaa kamid ah ku-xigeenkiisa oo walaalkiisa oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Xamdaan Dagaalo iyo ninka kale ee isagu gobolka Darfur madaxda ka ahaa ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Jumca oo isagana la sheegay dhib xoog leh inuu geystay. raggan iyaga ee la xukumay ee reer Suudaan ee mucaaradka dhinaca marka la fiiriyo bini'aadanimada waxyaabaha ka baxsan oo dadka kula kaceen, xasuuqa ay kula kaceen, waxyaabaha bini'aadanimada dhanka ay ku kaceen iyo weliba gaboodfal iyo weliba kufsi ay u geysteen ee dad kala duwan oo meelo kala duwan ka deganaa wadanka Suudaan tan iyo 2023. dalka Suudaan culaysyo xoog leh oo bani'aadanimo ayaa ka jiray waqtiyadii ugu dambeeyay, laakiin lama oga dadkan la xukumayo dhammaantood sida lagu soo qaban karo maxaa yeelay iyaga oo maqan ayaa la xukumay sida ay sheegayaan wararka ka imanaya magaalada Port Sudan
ee ah waddankaasi suudaan. waddankan UK ayaa waxaa xukunka la filayaa inuu la wareego ra-iisul wasaare cusub oo isu tirinaya inuu noqon karo hogaamiyaha xisbiga Labourka ee talada haya. dhowaan ayay ahayd markii guud ahaanba xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ku jira xisbiga Labourku ay isku soo qaadeen fikirka ah inuu meesha ka baxo ra-iisul wasaaraha Starmer oo isagoo 2 sannadood marka la fiiriyo bishan July ay u tahay xilligii uu jagada qabtay. waxaa la suloogay xisbiga Labourka kadib markii bishii hore ay dhammaantood lumiyeen meelo badan oo ka tirsan dowladaha hoose doorashooyinkoodii ka dhacay UK. taasina waxa ay keentay inay dib isugu laabtaan xildhibaanada xisbiga Labourka oo markaasi la yiraahdo hoggaan xumida ka muuqanaysa Starmer in meesha uu ka baxa weeyaan. markii hore waxa uu isku dayay Starmer inuu ka dhigo adeego oo uu sheego inuu xukunka sii wadayo, laakiin culays xoog leh ayaa yimid kadib markii ninkii duqa magaalada ama meeyarka ka ah Manchester Andy Burnham isagoo uu jagadaas badheeyay meeyarnimada ama duqa magaalada Manchester kadibna uu noqday xubin buuxda oo ka tirsan xisbiga Labourka iyo dhinaca baarlamaanka. kadibna xubnaha kale ee iyagu ka tirsan baarlamaanka ee Labourku ay iyagu siiyeen codkooda iyo taageeradooda. taasi waxay keentay Andy Burnham inuu maanta haysto 85% taageerada dhinaca Labourka xubnaha ka tirsan ee baarlamaanka, taasoo ka dhigan 349 qof in ay taageersan yihiin. qofka la tartami kara hadda kadib ama isku taagi kara haddayba jirayso ee xisbiga ka tirsani waa inuu haystaa 20%, laakiin ma heli karayo marka la fiiriyo tirada iminka Andy Burnham uu haysto. waxaa laga yaabaa toddobaadka soo socda inuu noqdo ra-iisul wasaare hogaamiya inta u dhiman marka la fiiriyo qolyahan iyaga ee Labourka oo markii hore sida aadka ee fiican uga adkaaday 2024 qolyaha conservative-ka oo dhinacooda dhulka ay dhigeen. laakiin 2 sannadood oo lasoo dhaafay ayaa waxaa loo tirinayaa hogaankoodu inaanu fiicnayn marka la fiiriyo arrimo badan oo markaa lagu eedeynayo. laakiin iminka haddii ninkan cusub ee Andy Burnham uu jagada qabto waxaa laga yaabaa in ay noqoto hoggaan cusub oo la tijaabinayo isaga laftiisa halka uu wax mariyo inuu ka duwanaado Starmer iyo in kale. wararka ka imanaya dhinaca Washington waxay sheegeen dowladda Mareykanku inay sheegtay iyo xafiiskooda arrimaha dibadda in ay doonayaan gebi ahaanba awoodda inay ka qaadaan maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC. arrintan iyada ahi arrin uguba ama cusub maaha marka la fiiriyo isqoonsanaantay isqoonsanaayeen Ameerikaanka iyo maxkamadaas dambiyada dagaalka ICC ee fadhigeedu yahay magaalada The Hague ee waddanka Netherland. horey ayaa saraakiil ka tirsan maxkamadda ICC cunaqabateyn ay ugu soo rogtay dowladda Mareykanku iyadoo nacbaysatay go'aamada ay gaarayaan iyo baaritaanada ay baarayaan maamulayaasha iyo dacwad oogayaasha maxkamadda dambiyada dagaalka adduunka ICC oo ah dadka dhibaatada ka geystay xasuuqa adduunkan aynu ku noolnahay. laakiin Ameerikaanku si gaar ah wuxuu maxkamadda u qoonsaday isagoon ka tirsanayn arrinta ku saabsan inay maxkamadda dhowr jeer u soo jeedisay hoggaanka sare ee dalka Israa'iil oo la sheegay in ay xasuuq iyo dhibaato iyo gaboodfal iyo balaayo iyo dambiyo dagaal ay ka geysteen dhulka reer Falastiin gaar ahaan Gaza marka laga bilaabo Oktoobar 7 2023. Mareykanku waxa uu sheegay in isagoon ka tirsanayn Israa'iilna aanay ka tirsanayn inay cunaqabateyntii ku soo rogeen ka sokow saraakiisha sare ee dacwad oogayaasha maxkamadda ICC iminka Marco Rubio oo ah xogayaha arrimaha dibadda Ameerikaanka muuqaal oo soo duuban la dheehday inay doonayaan inay gebi ahaanba maxkamaddu awoodda ay weyso meeshana ay ka baxdo. Ameerikaanku waxay ugu baaqayaan wadamada xubnaha ka ah marka la fiiriyo maxkamadaasi inay iyaguna ku taageeraan dowladda Mareykanka in maxkamaddu awood aanay yeelan. Ameerikaanku waxay ku goodiyeen haddii ay dhacdo wadamada qaar inay diidaan iyaga laftooda cunaqabateyn in la saari doono, taasoo markaas siyaasad ahaan aan wanaagsanayn in lagu qasbayo wadamo markaasi aan la magac dhabin haddii ay kasoo horjeestaan go-aanka Ameerikaanka iyaga laftooda cunaqabateyn inay mudan doonaan. maxkamadda dambiyada dagaalka waxay ahayd mid hore la isugu raacay oo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay sheegtay in la maxkamadeeyo cid kastoo hoggaan ka haysa adduunkan oo dhib geysata iyo xasuuq loona arko inay khatar ku tahay dadka ama dalkooda ama wadamada kale. taasina ay keentay dhowr hogaamiye oo hore in la maxkamadeeyo, kuwo kalena iminka ay sugayaan. walow maxkamadda lafteeda mararka qaar ICC farta lagu godo oo la yiraahdo waxay xoog weyn yihiin ama u xusulduubaan in ay raadiyaan qolyaha dhinaca Asia ama Africa, laakiin uma dhawaa karaan meelaha kale sida hadalka mararka qaar loo dhigo. halkaad warkaas sida tooska ugala socotaan waa channelkeena CID Pro TV ee dhinaca wararka, waraysiyada iyo waxaan u soo joogay. wararka ka imanaya dalka Ciraaq waxay shaaca ka qaadeen in guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo waxisdabamarintu ay gacanta ku dhigeen baaritaan iyo weerar ay qaadeen dahab gaaraya 375 kilogram kaas oo intiisa badan hal meel laga soo qaaday.
wararku waxay sheegeen in la eedeynayo nin isagoo wasiir ku-xigeen ka ahaan jiray wasaaradda dhinaca saliidda iyo weliba dhinaca sifaynta saliidda oo ninkaa lagu magacaabi jiray Cadnaan Al-Jumayli. ninkaas ayaa la sheegay jagada in laga tuuray kadibna la xiray iyadoo loo tirinayo in isaga iyo qolyo kale ay ku kaceen musuqmaasuq oo ah hanti u dhaxaysa ummadda in markaasi la islaysiiyey. maxkamadeyn ayaa ka jirtay intii dambe waddankaasi Ciraaq oo ku saabsan siyaasiyiin kala duwan iyo sharciyaqaano iyo saraakiil kale oo loo tirinayo dhammaantood inay musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay ka geysteen dalkaasi. taasina ay keentay in baaritaankan la sameeyo guddiyaduna ay howshaasi wadaan. lama oga xilliga guddigu arrintiisa uu dhammaystiri doono, laakiin barnaamij culus ayay ka wadaan guud ahaanba la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta ee waddankaasi Ciraaq oo kamid ah dalalka carbeed ee ku yaala dhinaca Asia. qodobka ugu dambeeya wararkeena iyo janalkeena waxaynu kusoo qaadanaynaa arrin ku saabsan ballaarinta wadamada aakhritaankii u tartama koobka dunida 4 sano mar ee kubadda cagta ee FIFA. sanadkan aynu ku jirnay 2026 waxaa tartamaya 48 wadan oo tiradii ahayd 32 la badiyay markii lagu ciyaarayay Qatar 2022 wadan bay ahayd, laakiin iminka Mareykanka iyo Mexico iyo Canada marka lagu ciyaarayo 48 wadan ayaa laga dhigay 16 ayaa lagu daray. hadal ayaa jira hore la isugu soo qaaday 2017 oo ah tirada maalabadiya oo laga dhigo 64, taasoo macnaheedu uu noqonayo 48 iminka 2026 tartamaysa marka la gaaro 2034 sano kadib in 64 wadan laga dhigo goobaha lagu ciyaarayana ay bataan. arrintaasi waxaa ka dhawaajiyay Gianni Infantino ninka lagu magacaabo oo ah madaxweynaha ama hogaamiyaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA. khudbad uu jeediyay ayuu ku sheegay oo uu ku faahfaahiyay arrintaasi sida ay suurtagal ku tahay, laakiin la rabo inay ogolaadaan guud ahaanba xiriirada kubadda cagta ee qaaradaha kala duwan. waxaa jira xiriirka arrinkan soo jeediyay inay yihiin qolyaha South America oo sheegay haddii 64 laga dhigo in fursad la siinayo wadamo badan oo dunida ka tirsan, laakiin waxaa jira guddoomiyaasha xiriirada qaaradaha kale qaarkood inaanay ogolayn. waxaa tusaale loo soo qaatay ninka isagu UEFA oo ah xiriirka kubadda cagta ee reer Yurub madaxda ka ah ee u dhashay waddanka Slovenia ee lagu magacaabo Alexander Čeferin. waxa uu sheegay inaynay habboonayn in la badiyo oo 64 laga dhigo, isagoo qiil uga dhigay habka soo bixitaanka iyo qiimaha daawashada iyo waqtiga oo markaasi aan fiicnaan doonin. laakiin fikirka ka duwan waxaa qaba guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Asia oo lagu magacaabo Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa oo yiri way fiican tahay in tirada la badiyo, waxaana markaas la helayaa fursad ay wadamo badan ay ku soo baxaan. waxaa kaloo isaguna kasoo horjeeda oo u arkay inaanay wanaagsanayn guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee dalalka waqooyiga iyo bartamaha qaaradda America iyo Caribbeanka oo yiri macno ma sameynayso mana wanaagsanaanayso in la badiyo tirada oo 64 laga dhigo, taasoo loola jeedo 16 wadan oo kale in lagu daro. FIFA waxay hore u qorshaysay 2030 in lagu ciyaaro 6 wadan oo 3 ay ku taalo dhinaca Yurub iyo weliba Africa oo ah Spain iyo Portugiiska oo Yuruba iyo Morocco oo waqooyiga qaaradda Afrika. 3 wadan oo ku taala dhinaca Latin America iyo koonfurta oo markaa noqonayo Uruguay iyo dalka Paraguay iyo Argentina oo laga wado dalka Uruguay sababta loo geenayaa inay tahay boqol guurada. maxaa yeelay Uruguay magaalo madaxdeeda Montevideo koobkii ugu horreeyay kubadda cagta ee adduunka 1930 ayaa lagu bilaabay oo lagu ciyaaray, taasoo marka loola jeedo haddii la gaaro biidnillahi kariim 2030 inay 100 sano noqonayso intii koobkan loo tartamayay 4 sanaba mar. lama oga sida la isugu raaci karo guud ahaanba 64 wadan in laga dhigo, laakiin waxaa qiil looga dhigayaa in fursad la siiyo wadamo badan oo iminka aan fursad haysan. FIFA iyo arrinkan ay wada halkuu saldhigo waxaad kala socon doontaan biidnillahi kariim channelkeena oo waa kuma waa CID Pro TV ee waraysyada wararka iyo waxaan usoo joogay tan iyo kulan dambe. Maxamed Axmed Xaaji Maxamed Cagmadhiga iyo bahda channelkeena CID Pro TV waxay idin leeyihiin kalama tegin isma dhaafin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.